هون كانوا وقرب وقرقر قرصونو ما نجابكو قرنين هون كانوا وقرب وقرقر قرصونو ما نجابكو قرنين هويو هوي قعالو هويو هوي قعالو gurigii asluubtay ubaxnaga gudoomo guulayso 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 waliga qof kasto martabadiyo sharaf lagu manaystaba qiyo awoodiyo mayraxa ku qaaday hooyo adiga mudnaashale هويو أديقا مناشلة مفتي قويهن مليل عوانيو برميلي فيه با معلنكي وحباري هويو أديقا مناشلة هويو أديقا مناشلة baarlamaankeena fasaxo ku jira inaan joogo caasimadii galmudug oo caawa aan kala qayb qaato haweenkayga qaaliga ay reer galmudug dadkii xornimada keenay iyo gabdhihii wadankan u soo calanka keenay ee u dhintay ay ka soo jeedaan iyo ragoodaba inaan caawa la qaato xafladan qaaliga ah ee maalinta haweenka caalamka oo tamaars ciyaar ma aha ilaahay waxaan idinkaga rajaynaa cimri dheer oo cibaadiyo caafimaad taam leh bisha ramadaan oo nabad ku gaarno ilaahay idankiis kuwii inta nabad ku sooma ilaahay uu naxariisto tobanka hore tobanka dhexe loo dambi dhaafo tobanka dambana cadaabka laga xoreeyo anaga reer dhiba iska nahay reer galmudugnahay ilaahay ha nacafiyo xaqiiqo waxaan leenahay haween karti leh oo qiimo badan laakiin aan fursad haysan aniga waxaan ku hadlayaa codka baarlamaanka qof walba waxa la rabaa meeshuu ka soo jeedo inuu wixii uu qaban kariyo wuxuu qabtay sheego aniga ana codka gabdhaha iyo kii baarlamaanka inteena taabacsanba ku hadlayo oo xildhibaan Khalid oo igala jooga xildhibaanadeena waxaan meel marinay sharci aad ku heli kartiin boqolkiiba 70 bulshada tiine iyo laf dhabarkii dalka iyo dadka sharci qof iyo hal cod iyo qof ah si aad u heshiin koofi subagla wuxuu idin diidi jiray waa ka xoroobaysaan ina garab nagu siisaan la rabaa annagana waa meel marino sharciga madaxweynahana wuu saxiixay xisbiya la sameeyna xisbiyadiina iska qayb gala kuna xisaabtama oo dhaha annaga waxaan rabnaa boqolkiiba 30 baarlamaanka galmudug dastuurkiisa dastuurka galmudug waxa ku qoran boqolkiiba 30 haweenka laakiin laguma dhaqmo 29 xildhibaan inay ku jiraan oo haween ah loo baahan yahay baarlamaanka waxaan hadda ku dareynaa dib u eegisa lagu jiraa oo aniga idin ballan qaada ilaahay idankiis 29 gabdhood baarlamaanka soo socdo inay soo galaan xaqiiqo waxa ah ma ayan joogeen dadkana riixaya oo rabin inaan anaga wax noqono ama aan siyaasadda ka qayb galno intaan dadaho meesha fadhiyo caruurtooda lama arkeen haddaan gabdhuhu markii dawladii dhexe burburtay ee dalka laga hayaamay haddaan gabari reer biilin waa la baabi'ilaha bulshadana qof ma noolaateen waa maalin wanaagsan gabdhaheena waxaan idin dardaarmayaa gabar wax baratay bulsho wax baratay waaye qofka da'diisa ay dhaaftay niyad jabin oo fursad u helin 30 sano waxa timi teknolojiya casri ah waxa baranaysaa luqadda Ingiriiska oo dadka ay ku shaqeeyaan international language ah oo waa luqad caalami ah iyo computer hadaa baratid secondary school iyo jaamacad uma baanid adoo weyn oo maskaxdaadu tamaam tahay gabadhan awood lahayn annaga aan iska gurno lacag aan aruurino gabdhaha gabdhaha dahaba waa gudoomiye gabdhihii golaha deegaanka oo meesha jooga $1 $5 $2 $3 hadii la bixiyo gabadha wax baranaysa oo soo diyaar garowdo moralkana waa loo dhisi karaa wax barashada lacag ay isaga bixisana waa la siin karaa